اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وولاشين صديقة سيمن iyo mar kale asxaabtayda ii soo dhawaada ma sha Allah seetihiin ma fiicantihiin asxaabay maanta waxa ka soo tuuraynaa bajiye ninkii yaqaan bajiya laga soo tuurayaa asxaabay marka ma sha Allah waxa mashiinka ugu jira waa digirta yellowga oo yar oo biyo aan la radiyay xalay like markii salaad subax la tukaday kadib marka biyihii waan kasoo miirtay waatana waxaa igu darsan cusbo yar nus qaado cusbo ah asxaabay marka halkaana waxaa igu jira toon basasha oo basalbaar basasha cadda basal dhaadheerta jab yar oo yaanya iyo kamsar marka asxaabay intaasaan isku darayaa basbaaskiina waa ii dhimanyahay okay asxaabay marka waa kasaa marka inta waxaa iigu jiro raqay aan soo kululeystay wakasa asagana shable lagu siinaa ma fahanti okay basbaas marka asxaabay aniga basbaaska caadiga ima oolin midaan shiitay oo ani frinjeerka iigu jiray ayaa ii yaalay marka kaasaan ku darsanaya adiga kii oo kanonol hadaa haysato ku darso marka intaana isku soo shiideynaa marka se kusoo baxdo ayaa isla soo arki doonaa insha Allah marka asxaabay waa kana soo shiino kaasaas ku soo baxay quruxda badan ma sha Allah markaan dubayno ayaan isku soo noqonaynaa insha Allah si qurux badan buu ku soo baxsaama ma sha Allah markaas ahaabe waa tasliideena way noo soo kulaatay bajiyeena waa kana intuu noogu jira waa soo qasanay waa ku shubanaynaa marka waa kaas bismillah saliida iyo xoog kaaga kululaanin sababtoo qeyrina gudaha ka noqonay digirta bajiyaha ila digira laga sameeyay moogt xoog iyo kaaga kulaan dabka markay saliida ku kulaato waxoogaa midal geyso si oo maxay ahayd oo qurux badan ay kuugu bislaanay markaas saliidto qeyrina ma noqonayso insha Allah asxaabay waa kaasa maanta bajiye casriye loo sameeynayaa iyo burshiilshiilkan hadda waa samaysan doonaa asagana waa idinka dabageynayaa asxaabteyda qaaliga wax walboon sameynaayo inaan la qaybsadaan jeclahay ma sha Allah asxaabay isoo dhiirageliyahay idinkala dhiiragelintiina muhiimay ii tahay waxawaaye ma sha Allah wax kasta in anigana aan balan idinkaga qaadaya inaan idin soo geliyo marka asxaabay waa tanaa waa ka guranaynaa waa diyaar qaybta ugu dambeeysa waaye ma sha Allah wakaas intii kale halkaan inoogu jirta ma sha Allah kaasa marka waa ka guranaynaa sida quruxda badan ayuu noogu soo baxay ma sha Allah dawaa kaas asxaabay bajiyeeni halkaas ku soo dhamaaday wixii kale oo sameeynayo waa isla qaybsanaynaa insha Allah la socod wacaan marka asxaabay waxaan sameysanaynaa mandaazigeena sameysanaynaa marka waa gogoynaa inta sirtaas soo gogoyna marka soo gogooyo inta u gogoyna marka soo gogooyo aan isku soo noqonaynaa asxaabay marka asxaabay waa kaasa ku soo saftay waa soo gogoostay ma sha Allah xabadaan aan fidiyay waa taas simbal ahaan idin tusay xabadaan marka xabadaan aan fidiyay waa kaasa diyaar waaye waxa lagu ridayaa saliida insha Allah isla socod waan marka asxaabay waa kaasa mandaazigeena sidaas quruxda badan buu inoogu bislaanayaa oo ujeedaan halkaan waxaan ku sameeyay waa kaasa hortiina xoogaa sameeyay qaybtaana ii dhiman marka waa kaasa ma sha Allah inuu saas noqdaan jeclahay golden ka inuu noqdo ma jecel black ama gubto ma sha Allah waa kaasa asxaabay qaybtii kala ku soo gureynaa kaasa afar xabo shan xabo hadba wuxuu ku qaado weelka aad ku karinayso ayaad ku ridanaysaa sida kaliya iska soo fuuraa ma jeedo qaanda xataa san la dhex marin ودلعي روا ما شاء الله خفيف وكاس أصحابي ما شاء الله سيدا قروح البزار إنه هو بسلان عايو
marka asxaabe waa kana casriyaheeni ma sha Allah sida qurux badan buu noogu soo bislaaday waa kana bajihi burki mandaazigi basbaaski koobkaaga qaxwada ama koobkaaga casiirka ma sha Allah waxaan ku dhahay dhakusiyan ku dhahay dhakusi casriya waxaan soomaha asxaabe hadda ka hesheen like comment subscribe inta asxaabe nasiiya insha Allah waa si walaashiin Sadiqa Siman haddaan ugu cusubtihiin haddaa nala joogteen intaba share like and subscribe waa walaashiin Sadiqa Siman oo idin leh mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad asxaabi soo dhawaada gacmo furan qalbi furan janal furan intaba ma sha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh